waxaan kale u hambalyeynaya maxkamadda ayaan hambalyeynaya dhammaantiin shaqo wanaagsan baad qabateen dhammaantiin aad baad mahadsantihiin dhammaantiin ciimi weydin la jirtaa sababtu waxay tahay si wanaagsan baa u shaqayseen yaa inamada inaga baxayna ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inamadu waxay ka baxeen in Soomaaliyo idil inamadu waxay sameeyeen waxa aad u xun inamada waxa wanaagsan in la qasaaso sababtoo ah dambigii baa ka hadaya laakiin waxa jirta qof markuu dambi galo dadkoodii ma doonayaan in la dilo dadkoodu waaye markaa dadkoodu ma garanaysaay inanku horta maanta inan baa waxay ugu tiri عمر محمود إنتنا وإيران إمشي يوم قرنسان إمشي ويانا يضنا ما أنت عمر محمود قبل ما ينور لبني بحك بحي هذا عمر محمود أنت حكومة قبل ما يعني بقول صفوا ضد بدنا نقوانا قانا إمشي أبد مهسنتين إمشي هذين النهاينا وحين النهاي ضد ظلم جنعب ضد ظلم جنعب بين النهاي الصومالية إذا بعد ظلم جنعب لكن سوى حتى ضد لو ضيزو كوسي لان با ودنكي لو بخي marka wadankii magacii waxa la rabaa inaad masaxdaan maanta magacii masaxmay kufti laan baa maanta masaxmay wallahi wuu masaxmay yaa waligii anigu dad ma daawanin wax la dilay ma taawanin mana taawan doon alxamdulillah because waan qalbi jidcsanahay laakiin dad badan ayaa jeclaan lahaa inay ka qayb galaan laakiin aan u suurta gelin inay daawadaan nimankaas la dilay laakiin wax la dilay ilaahu hay daawad because ma way karayade oo de wadnaha bay xanuuna waa suuxaya xabada ama ka baqaano waxa dhikaleynay warkeeda waxaan kala u diray taasi u diraya hooyadii uu ka baxay inankaasi iyo hooyadii kale kan kala ka baxay ee weyni waxaan leeyahay mid kastaba qalbiga ilaahay idin qaboojiyo waxaase muruga ah labada inan hooyada dhashay oo lay sheegay inay labada inan oo kaliya dhashay waxa la sheegay markay maqashay maxaa dhaday markay maqashay funaanadeyda hagaajistay markay maqashay labada inanoo in kaliya inanimadeedii waxa falka sameeyay waxa la hooyadaas way suuxday baa la yiri hooyadaasi yani suuxday yani koomay gashay waxa la hooyay ilaahay qalbiga ha ku qaboojiyo ilaahay qalbiga ha kaaga masaxo inamada aad dhashay adigu dambi maadan geysanin laakiin baraaya waxay ka dhacday nimankii aad dhashay inkastoo kan weyn imka dib loo dhigay saddex midoo bay noqon kartaa in laga xaalo magaranaysa ama mag la bixiyo ama la iska sii daayo ama cadeyn ba lagu waayay waa saddexda midoo dambi hadii lagu helana kuwii baa la raacin labadii kala la raacin ma fahamteen marka wixii dambi gala bi'ada in la dhaafiyo way tahay wadanka in la dhaafiyo way tahay because of rag badan bay tusaale u tahay sababtoo ah wuxuu yiri odaygii caashadaada cafis bay iga dalbadeen cafiska horta odayga caashi dhalay wuxuu waan cafiyay because of waxay ogaayeen aakhiro inuu socdaan maadaama aakhiro u socdaan waxay yiraahdeen annagna nacafi kule wanaga aakhiro u socon hadaan dhimanayna nasika ya cafi aakhiro inayna waxba isu qabsanin cafis baa tihiin buu ku yiri ma sha Allah waxaan aad iyo aad u bogaadin mudan oo aad u mahadsan oo fariida oo ku daysho mudan oo aaba ah oo aaba lagu dayda ah oo aaba fariida ah aaba Ilyas ayaa ah aaba lagu daydo ayaa ah aaba fariida ayaa ah aaba Soomaalidu ay ku dayn karto waay see loogu dayn karaa waxa loogu dayn karaa waxa weeye inuu inantiisii xaqeedii soo dhacsaday ayaa loogu dayn karaa wasida marka waxaan leeyahay maxkamadda Puntland aad iyo aad baad u mahadsantiin madaxweyne danayo anigu kuma daawado because anigu waxaan daawan jiray Cabdiwali Cali Gaas anagu MG aan wadanahay iskagana dhownahay oo aan qaraabanahay marka adiga horta hadalkaaga ma fahmo kuma daawado laakiin waad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay Soomaaliya dhan waa mahadsantiin aadna waan idin salaamay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh